magacaygu waa Axmed Saciid Nuur wasiirka kalluumaysiga dekedaha ee dowlad goboleedka Puntland runtii anigu universal meelaha aan daawado bay ka mid tahay kanaalada aan daawado oo arrimaha Soomaaliya ka warrama hadda hadii la yiri universal waxa soo degaysa Puntland aad iyo aad baan u faraxsanahay waan ku bogaadinaynaa waxaad moodaa inay ka maqnayd wararka Puntland universal in laga sii deyn jirin laakiin hadda waxay la tahay xafiis laga furay inay wararku si fiican uga socon doonaan waan idinku hambalyeynaa taas tan labaad telefishanku waa telefishan runtii arrimaha Soomaaliya ka warrama maantana saxaafadda Soomaaliya siyaabo badan baa loo baahan yahay mar dadku inay war helaan oo ka war helaan bay rabaan marka kan laga baxo in loo adeegsado saxaafadda ruuxeeda ayaa aad iyo aad laga maarmaan u ah hay'ad saxaafaddu saameyn weyn ku yeelan kartaa dadka ku yeelan kartaa haddii si wanaagsan oo sax ah loo adeegsado aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa asagana yani sida wanaagsan oo dadaalka fiican uu sameeyay waxaan leenahay dadaalka ay halka ka sii wad Puntland hadee inay wararka aad ugu badato universal ayaa rajaynayna maadaama hadda xafiis laga furay arrinta saaran laha waan idin hambalyeynaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Muuse Yuusuf ku magac dheer gentleman waxaan ahay wasiir ku xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda haddii aan wax ka iraahdo mowduuca ku saabsan TV-ga universal marka hore waa soo dhaweynaynaa ka furitaanka xafiisyada ay ka furatay deegaamada Puntland iyo howlgalka ay doonayso inay ka fuliso deegaanka Puntland oo ay u fulinayso mujtamaca ku nool xaqiiqdii anigu waxaan ahay mid ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed haddana xil maamul haya marka waxaan dareemi karaa baahida loo qabo in la helo idaacad weyn oo gaarsiisa wararka deegaanka dhammaan adduunka qaybihiisa kala duwan sida ayaan u leeyahay universal inay ku habboon tahay maanta xilliga kan inay arrinta fuliso tan kale waxa ay tahay maanta Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalada adag sababaheedu ugu weyn waxa kamid ah jaahilnimada ummadda ka haysa waxa jira sida loo daaweyn karo marka sida ay wadaad saxaafaddu waxay qayb ka qaadan kartaa in ummadda wacyigelin iyo maskax dhisid loo sameeyo si ay u gartaan inay arrintooda ayagu xalistaan halkii ay ka sugi lahaayeen inay cid kale u xaliso annaguna waxaanu jecelnahay in warku uu noqdo si ummaddu ay wax u garato mid dhinaca wanaagsan laga sheego laakiin inuusan noqon mid dhinaca xun laga sheego si aysan dadku mar walba u arag waxa jira inay yihiin wax xun waa soo dhaweynaynaa waan idin salaameynaa waliba gaar ahaan waxaan u salaameynaa maamulka iyo mulkiilaha idaacadda waanu leenahay dadaalkiina meesha ka sii kordhiyo assalaamu calaykum magacaygu waxa la yiraahdaa salaam waxaan ka tirsanahay shirkadan la yiraahdo Mubarak Group figa universal runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay TV international oo maanta ka jira adduunka ka jira caalamiga oo ka dhex shaqeeya muxuu adduunka ka shaqeeya soo baahiya arrimaha Soomaaliya haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha iyo waxyaalaha ka soo gudbay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqo fiican uu qabtay muddadii uu jiray muxuu ahay telefishanku runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ugu faraxsanahay in xafiisyo cusub TV uu ka furay magaalooyinka muxuu ahay Boosaaso iyo Garowe laba xarumood oo Soomaaliya taas oo rajeynaya wax badan ka tari doonto xagga meediyada iyo xagga isgaarsiinta iyo xagga muxuu ahay waxyaalaha adduunka ka dhacaya la socodka businesska adduunka iyo meesha maraya siyaasadda Soomaaliya bariyahan iska qalafsan oo baahan marar badan maaragtay wax laga ogaado runtii waxaan rajaynayaa waxyaalahaas oo wax ka tari doono TV-gu waxaan ku weerinayaa dhammaan dhalinyarada iyo asaasayaasha iyo dhalinyarada ka shaqeysa TV universal inay hadii jeer ugu adeegaan bulshadooda si daacad ah
gaarsiiyaan warar wanaagsan oo qabada leh barnaamijyo fiican oo hadday tahay barnaamijyada xagga dhaqaalaha xagga muxuu ahay ganacsiga xagga muxuu ahay arrimaha bulshada waxba inaanay wax badan isku ahayn xagga siyaasadda baryahan iska guracan insha allah intay ka hagaagayso laakiin ay xoogga saaraan waxyaalaha bulshada faa'iido u leh xagga caafimaadka oo kaleeto oo maaragtay insha allah mujtamaceena aad iyo aad uga xiraadan yihiin una baahan yihiin maaragtay warbaahinta inay wax badan maaragtay ka faa'iidaystaan marka runtii aad iyo aad gaasna waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay xoogga saartaan TV-ga iyo soo saaristiisa iyo shaqadiisana waynu ku mahadcelinaynaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره أنا بلداجي عباس بلداجي علي بن جعيل كنتي إعلام كصوماليا بريهن آدي هرمر أسمي تلفزيون كان ينفصل حلو ملينا تلفزيون ذي يعني عالمي هذا إنه كجره آدي وحن وفر حسانها يعني مركو هره حفيز كلا غفري عاصمة الدولة goboleedka Puntland garowe iyo boosaaso faracna laga furay waan jirsanaa ruuxantii telefisyoonka Universal waa telefisyoonadii ugu horreeyay afka Soomaaliya ku baxay oo ahaa waxaan ka helay barnaamijyadiisa kuwa taariikhiga ahaa hore especially yani dawladii Soomaaliya iyo Talyaanigii xilligii gumaysiga dalka xorriyad uu san qaadan iyo xilligii yani lixdameeyadii taariikhaha uu soo sii daayo telefisyoonkaas aad baan ula socdaa runtii aad buu cajab geliyay telefisyoonka insha Allah waxaan jeclahay in aad meesha hadda aad joogtaan aad kor uga sii qaadaan oo aad horumar weyn gaarsiisaan insha Allah idinkuna waxaan idinka codsanayaa mataqaanaa in aad meel walba Soomaaliya aad gaarsiisaan si Soomaalida maadaama aysan lahayn dawlad dhexe oo telefisyoon laga daawado gobolada oo dhan marka inaad xafiis ka furataan meelaha nabadgelyada sida Kismaayo Baydhabo saasan mataqaanaa idinku boorinayaa barnaamijyada telefisyoonka ka baxa waxaan jeclahay barnaamijyada yani diiniga ah kan ugu horeeya barnaamijyada nabadda ka hadlaya barnaamijyada ganacsiga ka hadlaya iyo kuwa kale oo horumarinta ka hadlaya oo dhan aad ayaan u jeclahay barnaamijyada ka baxa telefisyoonka barnaamijyo yani waxaan jeclahay inaad ku kordhiyo inaad ku kordhisaan aad badisaan yani barnaamijyada diiniga inaad ku dadaashaan dad badan oo fursad u helin inay mataqaana bartaan aqoonta diinta islaamka ayaa jira sidaas daraadeed waxaan kula talinayaa in aad barnaamijyada diiniga aad badisaan aad ka dhigtaan yani lahu saddex barnaamij oo kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا يوم عمام الحقوق Universal TV. مركو روحان سلام كليلا مصدر يا دمان دوادياش ميلون بو أي جوغان هالكنا على الصعدة. قرطوا حفيز Universal بوساسو. waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa dhammaan madaxda iyo maamulka dowlad goboleedka Puntland oo dhiirigelin iyo gacan weyn nooga geystay furitaanka xafiisyada inuu ka furnay iminka magaalada Garowe iyo magaalada Boosaaso waxaan kaloo mahad u jeedinayaa ganacsatada iyo dadweynaha sidoo kale nagu dhiirigeliyay furitaanka xafiisyadan oo howlahooda ay dib inoogu bilaaban doonaan maalmaha soo socda hadduu alla idmo waxaan ugu baaqay inaan soo dhaweynaynaa iyaga cid alaale ciddii danaynaysa haddii ay noqon lahayn culamaa diinka ganacsatada dadweynaha madaxda iyo maamulka dowlad goboleedka Puntland waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan dib u sii ballaarino misla xafiisyadan hadda waxaynu ka bilownaa laba magaalo Garowe iyo Boosaaso insha Allah ta'ala waxaynu ku xijin doonaa Gaalkacyo ilaa Laascaanood hadduu alla idmo